Kusoo dhawaada shabakada Sheikh Teach waad uga barateen inay idiin soo bandhigto cilmiga tiknoolajiyadda. Waxaynu casharkan ka hadlaynaa sida loo qurxiyo farta WhatsApp-ka. Tusaale ahaan waxaan fariin u dirayaa qofkan. Waxaan qorayaa hello. Waxaan rabaa fartan inaan ka dhigo bold. Waxaan ka hormarinayaa daba xidig. Waxaan ka hormarinayaa xidig. Waxaan u dambaysiinayaa xidig. La soco wax space ah u dhaxaysiin mise space ka ilaalinaysa. Fartaas hadda bold baynu ka dhignay ama burbur. Waxaan rabnaa farta inaynu ka dhigno chief. Waxaan leenahay aynu ka hormarinaynaa calaamadan underline-ka hoose. Waxaan kaloo qoraynaa tusaale ahaan waxaan kaloo iyadana u dambaysiinayaa calaamadan underline-ka ah. Sida ujeedaan farti waxay noqotay chief. Si haddaba waxaan kaloo iyadana ku dareynaa in aan bedelno farta WhatsApp-ka. Waxaan ka hormarinaynaa qoraalka markaan saa u qorno calaamadan 3 jeer ayaan ka hormarinaynaa, 3 jeerna waan u dambaysiinaynaa. 3daas dhibcood ee kor u taagan baan qorayaa. Kadibna waxaan leeyahay enter oo aan dirayaa qoraalkii. Waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta in qoraalka aan dhexda ka xariiqno. Tusaale ahaan waxaan ka hormarinayaa iyadana calaamadan oo iyadana u dambaysiinayaa una horeysiinayaa. Saad u jeedaan qoraalkan xariiqin ayaa dhexda ka marsan. Waxaa kaloo iyadana aynu u baahnaa in aynu bedelno color-ka WhatsApp-ka. Si aan u bedelno waxaan u baahannahay inaynu soo dejisano waanu linkiga hoose idiin soo dhigi doonaa fonts for WhatsApp. Kadibna waxaan ku dhufanayaa get started. Waxaan halkan ka dooranayaa far allaale iyo farta aan u baahanahay in aan soo geliyo. Tusaale ahaan hadda waxaan dooranayaa tan. Waxaan lagu qorayaa. Kadibna waxaan dooranayaa meesha ay ku qoran tahay copy. Waxaan imanayaa dhanka iyo WhatsApp-ka. Kadibna waxaan tegayaa qofkaan u diri lahaa qoraalkayga. Waxaan riixayaa halkan kadibna waxaan leeyahay paste. Saad u jeedaan qoraalkii waxaanu bedelnay color-keedii. Waxaan jecelahay inaad ka faa'iidaysteen. Fadlan haddii aad fahmi weyday noogu soo dir fariin dhanka hoose ee comments-ka si aanu kaaga caawino.